ugu horreyn dhammaantiin baad baan idiin salaamay waxaynu ka sii ambaqaadi doonaa halkii muuqaalkii hore inugu joogay waxaynu soo sameynay qaybta mainboardka sidoo kale waxaynu soo sameynay student registration form hadduu alla idmo qaybta aynu muuqaalkan ku dhigan doonayna ama qaybo ay ka koobnaan doontayna haddii aan soo dhibaagareeyo qaybtan ay nooga soo muuqan doonta waayahay markuu mainboardkii noo soo baxo hore waxaynu soo sameynay student sida awgeed waxaan isku dayi doonaa muuqaalkan inaynu ku sameyno qaybta loo yaqaano teacher iyo subject teacher qaabku u ekaan doonaa iyo qaybaha ka soo muuqan doonaa waa kuwan waxaan ka soo muujin doonaa afarta column sidoo kale waxaan siin doonaa qaybta craarka inagoo uu helin doona oo ku dari doona qaybta new iyo display sidoo kale data grid view iyo sawirkan ayaan ka soo muujin doonaa haddii aynu xog gelino xogta waa inay save gareyn karnaa waa inaynuna sidoo kale aynu wax ka bedel ku sameyn karna waa inayn dhammaan query-ga SQL-ka aynu siin karna marka qaybta labaad aynu sameynaynaa waxa weeye waa qaybtan subject waa in maadadii la soo diiwaangelin karo oo maadadii la saari karo oo la update gareyn karo hadduu alla idmo marka qaybahaas uu ka koobnaan doonaa muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inayn qaybaha aan ku soo kofar gareeyo si aan u sameeyo waxaan tegi doonaa muuqaalkii hore halkii inagu joogay waxaan soo furi doonaa projectgii markaan soo furo waxaan dooni doonaa space nameku wuxuu ahaa school management system 2 isagaan soo furaya isaga markaan soo furo waxaan dooran doonaa qaybtan ayaad ku dooran doontaa .NET framework waayahay qaybtan markaynu soo sameyno waxaynu isu dayi doonaa inaynu qaybihii aynu soo arkayna aynu sameyno marka waxaan tegi doonaa qaybtan waxaan ku soo darsan doonaa form cusub qaybtaas waxaan leeyahay right click ayaan siinayaa add ayaan leeyahay deetana new item ayaan kasii dooranaya formkii ayaa dooran deetana waxa weeyaan qaybtan waxaan ula bixi teacher ayaan ula bixi deetana waxaan siinayaa add ayaad siinaysaa waayo teacher formka markaynu saa u soo sameynay waxaan soo qaadan doonaa waxaan tegi doonaa qaybtii student designka qaybtan oo dhan baan rabaa inaan soo copy garaysto control plus c ayaan siinayaa deetana waxaan tegi doonaa isla bisankii teacherka deetana control plus v ayaan ku siin doonaa weliba aan dib ugu noqdo halkan ayaan ka bilaabi waxaan leeyahay control plus a deetana xaggan ayaan leeyahay control plus c sidaa awgeed dhammaantoodba saasuu markaa igu sameynayaa qaybtan ayaan hoos u soo dhigi okay hoos ayaan u dhigi marka intan aan dhammaantoodba highlight gareynayaa hoos baan usoo dhigayaa marka waayahay qaybtana hoos ayaan u dhigi intaasaan u deynayaa qaybtana abdoocdaasaan usoo durkinayaa waayahay sawirkan waa soo bedelayaa qaybta rowga ayaad ku dhufan doontaa deetana choose image ayaan dooran doonaa import ayaan siinayaa marka waxaan soo dooran doonaa qaybta teacher deetana okay ayaan siin doonaa qaybtana okay baan siin sidaa awgeed haddii aanu qaybta aanu fixirka ugu ahayn qaybta u hooseysa zoom ayaad dooranaysaa qaybtaas ayaad dooranaysaa intaa markay ka nimaadno kolamadan oo dhan uma baahnin kolomka dhexda isaga horta waan iska saari kana waan saari waayahay emailkana waan iska saari waa intaas afartaa column ayaynu isticmaali doonaa hadduu alla idmo waayahay columnkana hoos baan usoo dhigi halkan waxaan u bixin doonaa student info weeyaan teacher information ayaan ka dhigi doonaa halkaa teacher ayaan u bedeli halkan sareyna studentigana waxaan leeyahay isagana waxaad tiraahdaa teacher c waxaad tiraahdaa teacher form waayahay qaybaha markan ka nimaadno waxaan u iman doonaa kan waxaan siin doonaa ID-ga waxaan ka dhigi doonaa teacher ID ayaan leenahay kan kale waxaan leenahay teacher name ayaad siinaysaa isagana
Okay, intaan markaan ka nimaadno qaybahan sidiisaynu deenayna. Haddaba inta aynu soo samaysanay aynu ku soo samaysanay foomkan ayaynu samaynaynaa isagoo database-kii oo serverka ayaynu kusoo samaysan doonaa. Waxaan tegi doonaa server Explorer-ka, deetana waxaad dooran doontaa qaybtii database-ka. Marka database management 2 ayaan isticmaali doonaa. Isagaan soo furi, markaan soo furo table-ki ayaan dooran. Labada table bay samaysan, mid cusub aan leeyahay. Ii soo samee marka add ayaan siinayaa marka table. Marka waxaan xusi doonaa kolomada aynu qaybtan ku soo samaysanay ayaynu iyagoo serverka ku keydsan doonaa iyagoo waxa weeyaan SQL. Way qaybtan markii ay nagu soo baxdo qaybta waxaan u soo bixinay waxaan oran doonaa waa teacher ID. Waxaan ku keydin doonaa inti qaybtan waxaan leenahay teacher 9. Waayahay isagana waxaan ka dhigi doonaa varchar. Waxaan leenahay qaybtan labaad gender. Qaybtan kalena waxaan siin doonaa gender. Qaybta labaad ugu dambeysana waxaan siinayaa fall. Intaas ayaynu soo samaynay oo intaas ayay ahayd. Markii xaggana tegaysaa halkaa table ay ku qoran tahay baad magacii ula bixi doontaa. Waxaan leenahay u bixin doonaa teacher. Deetana update ayaad ku dhufan. Update markaad ku dhufatid qaybta update database ayaad dooranaysaa. Saas markaa kuugu samaysan yahay. Haddaynu qaybtan soo furno inaanu refresh waxay noo soo baxaya teacher bay noo soo baxaya. Intaa markay ka nimaadno waxaan tegi doonaa markaynan qaybahan aynu soo xusno. Waayahay waxaynu soo programmeynaa markaa qaybtan ayaynu eventiga u sameynaynaa save. Waxaan ka soo qaadan doonaa markaa qaybtii hore u soo sameynay oo studentiga ahaa. Qaybtaas waxaan leeyahay double click baan siinayaa. Xogta studentiga ayaan soo copy garaysanayaa. Intaas ayaan soo copy garay. Waxaan tegi doonaa qaybta teacher-ka. Isagaad soo furi doontaa. Deetana waad ku paste garayn doontaa. Only waxaynu bedeli doonaa database-yada. Waxaynu bedeli doonaa parameterska ama kolomadii labadaa kolom. Waxaan iska saari doonaa horta kolomka waan iska saari isaga. Sidoo kale waxaan saari doonaa kolomkan u hooseeyana waan iska saari. Waayahay kolomka halkaa waxaan ku soo bedeli doonaa oo database-ka waxaa noo ahaa teacher 9 buu ahaa. Qaybtaasina waxay ahayd teacher ID. Way halkaan studentiga inugu baran tahayna waxaan u bedeli doonaa teacher ayaan leeyahay. Waaya qaybahan kolomadana waxaan siin doonaa iyagana waxaan leeyahay teacher ID. Halkana sidii baan ugu bedeli teacher baan leeyahay. Qaybta DPO-ga waa iska saari. Genderkana waan deysan. Sidoo kale waxaan iska saarayaa qaybta email-kana uma baahni waan iska saar. Okay, save. Dan waxaan leenahay qaybtana waa save record. Okay. Way qaybtan iska soo saxo. Way qaybta saas ay nagu dhammaystiran tahay xogtii saas la inagu save garaynaya. Intaa markay ka nimaadno waxaan u iman doonaa qaybta labaad student baad tegaysaa. Waxaan ka sii dooran doonaa qaybta add. Addna waxaynu copy garaysanaynaa isla qaybtan aynu copy garaysanaynaa. Halkaasina copy ka bilaabi ilaa SQL connection-keena qaadi. Waxaan tegi doonaa qaybtii teacher. Add ayaad ku dhufan doontaa. Add markaad ku dhufatid Ctrl+V ayaad siinaysaa. Deetana waxaan soo bedeli doonaa student select all from student. Waxaan ka dhigi doonaa all from teacher. Waayahay keliya intaas ayaynu qaybta ka soo bedelaynay. Intaa markay ka nimaadno waxaan leenahay sidoo kale
qaybta update ayaan dooranaynaa waa inayn updatena xaggan aynu ka soo cugannaa marka updatekan ayaad ku dhufan intan oo dhan baad soo qaadaysaa marka intaasaan leeyahay control plus c tana xaggan aan tegi doonaa double click ayaan siin doonaa control plus v ayaan leeyahay qaybahaasoo dhan baa markaa kusoo bedeli doonaa waxaan leeyahay teacher ayaan siinayaa teacher 9 waayo hadhow isaga ii soo saari doona skit ninkii yariga ayaa ii soo saari doona haddii aan mid ka mid qaab qoraaleedkiisa khaldo ama aan mid dheeraada ku darsado waayahay qaybtana waa iguma jirto gender sidiisaan u deynayaa phone sidiisaan u deynayaa meesha waxaan ka saarayaa maxay email baan ka saaraya oo email kuma jiro waayahay qaybta kalena waxaan ka dhigi doonaa student ayaan ka dhigi studentigaana teacher ayaan ka dhigi okay kana waan iska saari parameterkana waan saari haddana waxa weeye qaybta date and timekana waan saari waa inta kale saasay sax ku yihiin kolomadaasun baan soo bedeli doonaa waxaan ka dhigi doonaa teacher baan ka dhigi doonaa teacher id sidoo kale kana waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa isagana teacher name ka dhig genderna waa sax qaybtaasina waa sax way qaybtaasina saasay markaa ay noogu samaysan tahay oo saasaynu samaynay haddii ay hadhow wax khalada jiraan wuu inoo soo saari doona qaybta markaan saa ugu gudubna waxaan u iman doonaa qaybta deletena intanaynu soo koobi garaysanaynaa waxaan leeyahay control plus c isagana waxaan tegayaa teacher baan tegi qaybta designka waxaan leeyahay delete dooro waayahay isagana inta in lamida halkaasan baa waxaan kusoo bedeli doonaa teacher id halkana waxaan leeyahay isagana waxaad ka dhigtaa teacher id ka dhig halkana delete teacher qaybtanna waayahay teacher id isaguna qaybtaasina saasay inuugu samaysan tahay waxaan u iman doonaa marka qaybta u dambeysa oo qaybtana waayahay qaybtaasina waxaan sheegi doonaa waxa weeye waa afarta column qaybtana waxaan ku baran doonaa txt text box 1 dot text waayahay oo aan ku kaydsan doono null value marka intaasun baad isagana aad koobi garaysanaysaa waayahay halkaasaa waxaynu markaa ka dhigi doonaa 1 iyo 2 bay xaggana ka dhigi kana 3 baynu ka dhigi kana 4 baynu ka dhigi isagana saasuu markaa qaybtaas inugu samaysan tahay sidoo kale waxaan tegi doonaa allahu mustacaan qaybtan ad markaynu siino intaana soo koobi garaysanayaa waxaan leeyahay waxaad siisaa qaybta display isagana adha inooga soo muuji haddana ku noqo formka double click c isagana hadsta inooga soo muuji aan soo dhibaagareeyo marka waaye qaybta markaan soo dhibaagareeyo waxaan u baahanahay tusaale fudud marka aynu ku dhufano qaybta loo yaqaano teacher waa inuu soo baxaa markaa maynu soo siin oo teacher marka lagu dhufto maynu oran ha soo baxo markaa xaggii baan tegi doonaa waxaan tegi doonaa mainkii deetana waxaan leenahay teacher ayaan double click siinayaa teacher waxaan leeyahay tableka teacher ku xidh halka waxaan samaysan doonaa formka loo yaqaano teacher waxaan usoo gaabsan doonaa th ama th ayaan usoo gaabsan deetana th waxay ka dhigan tahay waa new teacher th baan qori deetana waxaan leeyahay dot okay intaasaan siinaya waa soo dhibaagarayn
Weeye teacher markaan ku dhufto waxaa ii soo baxaya foomkii macalinka ii soo baxay. Weeye haddaan idhaahdo lambarka koowaad aan geliyo ID-giisa aan idhaahdo teacher-ka waxaa la dhahaa Cabdilaahi baa la dhahaa. Aan idhaahdo gender-kiisu waa male. Aan idhaahdo aan halkaan lambar geliyo aan idhaahdo save waa inuu ii save gareeyo. Haddaan idhaahdo add waa inuu ku soo daraa. Haddaan idhaahdo halkaa Cabdilaahi aw Cali Ciise deetana aan idhaahdo update aan idhaahdo waa inuu update gareeyaa deetana aan idhaahdo display saasuu markaa wuxuu uga bedelaya. Haddaan rabo inaan saarona waa inuu delete yiraahdaa. Haddaan idhaahdo display waa inuu saa iga saaro. Haddaan rabo inaan xog cusub gashto oo new doorto waa inuu saa u tirtiraa. Markaa qaybtaas ayaynu ugu gudbaynaa. Waxaan isku dayi doonaa inaan qaybta labaad aynu samayno. Qaybta labaadina waa subject. Marka waxaan tegi doonaa qaybtan ayaan tegi doonaa. Waxaan tegi doonaa in programming doonaa qaybta subject-iga ay ku qoran tahay oo maadooyinka loogu soo diiwaan gelinayo. Isagana si la mid ah hadda waxaan tegi doonaa namespace-kii deetana add baan leeyahay. Deetana waxaan kasii dooran doonaa item-ka form-kan ka dooran. Form-ka waxaan kasii doonaa ku qoran doonaa subject ayaan leeyahay. Deetana add baan siinaya. Add markaan siiyo waan xoogaa oo soo roonaysiisanayaa. Waxaan tegi doonaa qaybtii teacher. Deetana intaan oo dhan baan soo koobi karaysanaya. Deetana xaggii aan soo samaystay ayaan ku baasti karaynaya. Weeye markaa ku noo sameynaya qaybta noocaas. Weeyahay intaas. Okay. Waan soo yareynayaa qaybahan oo dhan waan isku yareynayaa. Waxaan isku yareeyo kooban oo yar noqdaan. Weeye xaggana hoos baan uga soo dhigi. Okay intaasaan u daynaya marka xaggaana kor baan u yar qaad. Qaybta waxaan la soo bixiyaa marka ugu horeysa waxaan leeyahay subjective. Weeyahay qaybtana waa soo duwisanaya xaggana badinaya marka. Tactical view-gana intaasaan u diisanaya marka. Weeye kana hoos baan u soo dhigi. Inta markaan ka imaado waxaan u iman doonaa markaa inta button aan u baahanahay. Laba button kaliya aan u baahanahay. Button-ka koowaad waxaan ula bixi doonaa waxaan leeyahay qaybta koowaad waxaan ula bixi ama column-ka koowaad waxaan ula bixi doonaa subject ID. Qaybta labaadna waxaan ula bixi doonaa subject name ayaan siin doonaa. Weeyahay intaa markaan siiyo qaybahan aan soo qaadi labadan waan qaadi maadaama halka space ka bannaan yahay qaybta sandul. Weeyahay tas waan isku simoon qaybtan aan qaadi xaggan aan dhigaya marka. Kana kor baan u soo qaadi. Weeyahay magacana waa kasoo bedelaya. Waxaan leeyahay sawirkaana waa kasoo bedeli. Weeyahay sawirkan buugga ayaan soo saaranaya. Weeyahay isagana zoom baan ka soo dooranaya. Inta aanu zoom ku soo saarnayna aan adigu soo doora. Weeyahay haddaba intaasaan database-ka aan soo diiwaan gashanaya. Database-ka waan tegaya waxaan leeyahay table cusub ii samee. Table-ka cusubna waxaad igu bixisaa column-ka koowaad waxaad iga dhigtaa subject ID. Intii iga dhig kan kalena waxaad tiraahdaa waa subject name. Deetana xaggan waxaan leeyahay further ka dhig. Weeyahay halkana waxaan dooranayaa marka table-ka magaciisi subject ayaan dooranaya.
waayahay isagana halkii ayaan kasoo bedelaya. Intaa markan ka nimaadno waxaan leenahay waxaynu soo sarraysiino tusaale fudud. Waaye save account-ka ku dhufanay. Waaye save-na intii baan soo qaadan doonaa student-iga. Waxaan soo qaadan doonaa intii teacher-ka. Save markaan idhaahno connection-ka wuu inoo samaysan yahay. Okay, qaybtan baan tegi doonaa. Way database-kan iga soo xidh. Waxaan tegi doonaa subject-igii. Deetana double click waxaan ku dhufan doonaa save halkaasaan ku paste gareynayaa. Kolomada waxaasoo dhan oo column uma baahni. 2 column kaliya u baahanahay. Column-na waa column-ka loo yaqaano subject ID, subject ID. Ka labaadna loo yaqaano subject name. Way inta markaan sameyno xaggana tegi doonaa. Xaggana waxaan ka dooran doonaa subject. Okay, halkaan waxaan leeyahay subject. Way subject ID waan qoray. Sidoo kale halkaan waxaan leeyahay subject name. Waayahay subject name-kiina qaabkaasuu inoogu soo galay. Qaybahana waa soo bedelay. Okay, intaa markaan ka gudubno waxaanu iman doonaa qaybaha labaad. Waxaan leeyahay qaybtan add. Qaybta add-na sideedaan u qaadanaynaa. Isagana waxaan tegi doonaa subject-igii. Add ayaad siinaysaa marka control plus v ayaad leedahay. Halkaas unbaad waxaad u bedeli doontaa. Waxaad u bedeli xogta la soo akhrisanayo oo select all from subject. Wait. Qaybtan isla subject-igaan copy garaysan. Control plus c. Deetana waxaan tegi doonaa subject-igii. Qaybta display ayaan ku paste garayn. Sidoo kale waxaan ku paste garaynayaa qaybtan form-ka. Waliba qaybta form-ka ayaan ku paste garayn. Way form-ka ku paste garayn. Intaa markaan ka imaado waxaanu iman doonaa qaybtan delete iyo qaybtan update-ka. Update-ka aan ku horeeyo. Way update-kana intan baan soo qaadan. Control plus c ayaan leeyahay. Deetana xagganaan tegi. Okay, update-kan double click siinayay control plus c ayaan leeyahay. Labada qaybood oo iska saari. Way halka subject-igaana halka teacher-kaana subject baan ku bedeli. Way qaybahaas oo dhan baad soo bedelaysaa marka. Walow ay 2 qaybood oo iska simple ah ay ahaayeen. Halkaan waxaan leenahay subject name-kii. Qaybta labaadna waxaan leenahay kula mid noqoto isla subject name-ka kula mid noqoto. Qaybahaas oo dhan waxaad uga baahan tahay ma jirto.
way qaybta update saasay nuuga update gareysan tahay waxaan u iman doonaa qaybta delete xaggan in tegi doonaa waxaan leenahay delete way qaybahan kale iyagu easy weeye haddaa hal mar samaysid qaabkaasun baad waxa weeyaan aad xogtoodii aad uga dhigi kartaa object oriented waayahay waxaan leenahay subject deetana subject id-ga ayaad sheegaysaa subject id waayahay okay waxaa inoo hadhaya halkaa qayb baa inoo hadhaysa kulle okay qaybtaas ma deetana waa soo dibaa garanaya subject markaan ku dhufto waa inuu ii soo saaraay marka subjectigii markaa hadda waxaan dooranayaa qaybtii main okay waxaan ku dhufanayaa subject markaan ku dhufto waa inuu ii soo saaraa qaybtii aynu soo sameynay subject markaan ku dhufano waa inuu qaybtan noo soo saara qaybtan hadhow markuu bartanka rabo inuu inooga soo muujiyana waxaynu ka soo muujin doonaa ayaan ka dhigi doonaa qaybta bartan waayo id-ga koowaad ayaan gelin doonaa buuggaana waxaan leeyahay waa biology deetana waxaan leeyahay safe ayaan leeyahay waa inuu inoo safe gareeyaa deetana ar ayaan siinayaa marka waa inuu inugu soo daraa buugga labaad waxaan leeyahay new ayaan leeyahay saa buugga labaad u diiwaan gashto buugga labaad waxaan leeyahay waa tusaale waa chemistry deetana isagana waxaan siinayaa safe ar ayaan leeyahay way haddaan rabo inaan kaa koowaad labaad iska dhilid gareeyo ama ka koowaad dhilid garay kaaba labaad ba dhilid garay waa diliidkiisa waxbaa ka khaldan waa diliidkiisa si kolomad ayaa wax ka khaldan yihiin qaabkan kolomku qoran halkan maxaa inoo qoran teacher baa inoo qoran waxaan leenahay subject kale waayahay waxaan soo dibaa gareeyo waayahay subjectigan ku dhufan deetana waxaan leeyahay lambarka labaad waxaad siisaa delete display dhe marka saas u bedelaya waxaan leeyahay kaa koowaad id-giisa soo bedel waxaad ka dhigtaa Soomaali deetana update okay si display Soomaaligiisa lagu bedelay idinkuna insha Allah biidnillah qaabka soo sameeya. Assalaamu calaykum.